saas mariyay markaan u dhigtay dooli dhintay ayaan ku arkay mariyay saas markaan xijaab u dhigamaaga dhulka ku soo dhacay xasbunallah ilmihii ila joogay dad waaweyn oo guriga joog way yaabeen haddii aan ku dhahabal ka waran hooyadan markii aayadihii mowdka aan ku aqrinay maalintaasi way sakaraaday way tabcaantay taqriiban ilaa nus saac ayay dhacsaneed waxaa la aqriyay aayadaha mowdka markii aayadihii la aqriyay waxaan arkay anigoobu hadda qof dhima raba camal hormaanta waa dhima rabtaa qalbiga markii hore xoogaa aad aan xanuunsaday hadda aniga waxaan soo kacay dhacay oo aanan micnaha qof mir daboolmay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waa qaybtii saddexaad ama muuqaalkii saddexaad oo aan kaga warramaynay quraanka inuu dawo yahay. xalqadan insha Allah ta'ala kuwii kale way ka duwan tahay wayna ka saameyn badanta xaqiiqatan markii gabadha walaasheen inooga sheekeynayso ayaan idinkana ku arki doontaan oo ku maqli doontaan sidii ay ama wax qabsaday uga warramayso xarunta imaaday anigoo xanuunsan dareemay marka culays inuu qaarka dambe iiga degay laakiin fuleed badan dareemay alxamdulillah quraanka marka laygu aqriyo guriga markaan tagay maalintaas way soo waayay gabdhaha ila socdeen garbaha la iga galay bajaaj la ii saaray gurigii lagu heeyay dhulka ma qabanayaanba dhulkii waxay ku yihiin aad waxay ugu yihiin inay dhulka qabtaan oo maxaa muddo qof qodxa ku jir ku tagtaagiin amal waxaana lugahan waxa iiga jiro sax ma ahan saa hadii la dhaha lagu yisigsaanti laga siibay la fiiriyay wallahi alcaadiin dhagaxyo cad oo ilka dadeed aad moodid luguhay ku soo wada taagmay waxaan dhaa warkeena wax lagu bixiyo leega wada saaray alxamdulillah way soo baxeen alxamdulillah markay dhagaxaas iga baxay luguhayga waxay ahaan jireen awal miisaana iga deganay lugta dhinaca midigta way xanuuni jiray maalintaas wixii kadib alxamdulillah lugaha dadka waxaan ahaan jiray oo aad u xanuunsan oo saas u gudgadoomayaan wallahi alcadiin maalintaas wixii kadib dhagaxaas iga soo baxay aad ayaan u caafimaaday ilaahay khayr ha siiyo sheekha Aydaruus maxay ilaahayna xafido talada alxamdulillah aniga horta waxaan qaatay talooyinka xarunta laga bixiyo Aydaruus oo talooyinka dhagta u taagi jiray wallahi alcadiin markuu sheekh quraanka bagu ka sheekeynay iyo markuu maxay dadka uu sheegay aadan dhagta u taagi jiray haday tahay quraan la saaro haday tahay qof walba quraanka uu yaqaan Soomaalida quraanka way taqaan alxamdulillah laakiin maxay ahaday sidii iskugu dabiibayaan adiga in wax loo sheego u baahan oo dad ilaahay fahansiyo alxamdulillah ilaahay khayraas iyo sheekha talooyinkii marka aan qaatay aniga haday tahay dad waxa jiraan hadda waxay ku dhahayaan war adi daawada ma isticmaashay marka aad wali wax xanuunsan tahay maalinta ani imaanay daawadu waa ka gurigan geystay ma isticmaalay ku dhahayaan laakiin aniga alxamdulillah ilaahay wuxuu i waafajiyay inaan taladii si sax u qaato horta muddaan xanuunsanaay oo waxa laga yaabaa dadkan hadda dhibkan ay marayaan aniga waa soo maray oo daawada maraan qaadi jirin mar aan talooyinka qaadi jirin way jirtaa oo marka aan arko sheekh asoo ka hadlaayo aan iska sii laakiin alxamdulillah hadda ilaahay waa i waafajiyay qof kasta xanuunsan waxaan kula talin lahaa inuu taladaas qaato aniga hadii daawo la cunaayo mid la ismatajina hadee tahay waa isticmaalay quraanka waa la ii saaray quraanka marka la saaray sida quraanka loo aqrinayo sheekh wuxuu aqriyay aayadaha mowdka markuu aqriyay aniga waxaan noqday qof dhimanaya camal xanuun waxa i qabtay aan caadi ahayn kadibna aniga waa dhacay markii aan dhacay wixii kadib alxamdulillah horta nashaadan dareemay guriga marka la ii geeyay marihii dhiga markaan leeyahay xijaabkii xagga dhiga aan isleeyahay wallahi alcaadiin waxa iga soo dhacay dooli dhintay oo sidii uu u yaala ayaabay sidii wax dhintay oo halkaas ku dhacay dadka guriga jooga dad waaweyn joogeen ilma joogeen dadka dhan way qaracmeen hooy dooliga aduu ka soo dhacay xasbunallah marka alxamdulillah laakiin maalinkaas wixii kadiba wallahi alcaadiin waxaan dareemay caafimaad ilaahay wuxuu isiiyay caafimaad ilaahay khayr ha siiyo sheekha hadaba walaal muuqaalka waxaan rajaynayaa inaad daawatay si fiican aad u daawatay Allah ku barakeeyo muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa meel weyn aad gaarsiisid oo walaalada ka la wadaagtid sifo saaxiriintan cadawga ah jabkooda ay u arkadaan argagax iyo rucbina ugu dhaco kuwii sixirka ka dambeeyayna ay u arkaan acmaashii lacagta ku bixiyeen camalkii lacagta ku bixiyeen in ay ku khasaareen ilaahayow tusi camalkooda oo noqday xasaraatin calayhim السلام عليكم.